farxad bay noo tahay inaanu caawa ka soo qayb galno sanadihii la soo dhaafay sida ay u shaqaysay hay'adda shaqaaluhu iyo isbeddelka qarankoo dhan saameeyey dhammaan hay'adaha kala duwan ee qaranku uu leeyahay inaan caawa gebagabadoodii joogno dadkii hawlkareenka ahaa ee loo gartay in si gaara loo abaalmariyo annagu dhammaan u mahad celinayna mas-uuliyiinta iyo dhammaan shaqaale weynaha hay'adda shaqaalaha markhaatina ka ah waxqabadkooda ku dhisan aqoon karti iyo runtii isxilqaan oo wax badan aanu isku dhoweyn habeen gelin hore iyo gelinka dambeba aynu wada ognahay inay shaqeeyaan isbeddelkana laga taaban karo maanta oo laga dareemi karo dhammaan wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan shaqaale weynaha aynu leenahay isbeddelka ku dhacay oo aynu ka soo bilaabayno ilaa iyo madax taabadkii jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan ay soo madax taabteen waa wax runtii lagu farxo intayada nasiibka u heshay inaan caawa ka soo qayb galno guusha qaranku uu gaadhay waxaana leeyahay hambaliyo intaa kadib waxaanu inagu nidhaahnaa hay'addaasi ama ciddaasi lafdhabar bay u tahay qaranka kelmadda lafdhabar markaynu isticmaalayno qofka bini aadanka ahi hadduu gacanta ka naafoobo wuu shaqayn karaa hadduu lugta ka naafoobo ama xubno kale ka naafoobona wuu shaqayn karaa laakiin haddii uu lixaadka dhabarka ka naafoobo waxa weeyaan ma shaqayn karo sidaa daraaddeed waxaanu leenahay waa lafdhabarta qaranka waxa weeyaan hay'adda shaqaaluhu waxaanu ognahay maanta macadka hay'adda shaqaaluhu inuu yahay meelaha ugu tayada badan aqoonta jamhuuriyadda Soomaaliland sidaynu ognahay berigii hore iskuulada ama maxaa xukuumiga ahay had iyo jeer ilaa heer jaamacadeed kuwa private-ka baa laga doorbidi jiray maanta waxaanu dhammaanteen markhaati ka nahay in maxadka iyo hay'adda isku lamaanay waxa weeyaan quality-ga ay leeyihiin iyo ku talagalka aynu maanta ognahay inuu yahay mid standardka caalamiga ah la jaan qaadi kara aynu ku halayn karo aqoon-yahankeenna halkaa ka soo baxa inuu qarankan halka uu kaga beegan yahay hogaamin karo sidaa daraaddeed waxay inoo yihiin halbowlihii qaranka halbowluhu markaa haddii uu kuu hagaago oo uu sidan oo kale u toosnaado inta kalena isagaa hagaajinaya waana bidhaanta muuqata iyo runtii waxa weeyaan hiigsigii aynu lahayn iyo hogaamintii uu madaxweynaheennuna nagu hogaaminayey Muuse Biixi Cabdi iyo hiigsigii qaran ahaan aynu hiigsanaynay waxaad moodaa inaynu tubtiisii iyo taladiisii hayno maxaa yeelay sidaa la sheegay qaran waliba oo adduunyadan jira wuxuu ku hormaray waxa weeyaan ama uu ku dib dhacay habba siday u kala duwan yihiin shaqaale weynihiisu bini aadanku 9 bilood unbuu ku wada dhashay ee ma jiro wuxuu ku kala duwan yahay laakiin adduunku maanta magacyo kala leeyahay waxaynu u bixinay adduunyada koowaad ama adduunyada horumartay adduunyada saddexaad yaa inoo bixiyay lambar 3 waxaanu ummadda kaga duwanahay waxaanu garan karaa oo kaliya waxa maxaan dhahay la aqbalay ee inaguna aynu aqbalay inaynu lambar 3 nahay ama adduunyada saddexaad wax kale ma aha ee bini aadanku wuxuu ka kala hormaray waxa weeyaan habdhaqanka shaqaalihiisu iyo siyaasadda uu ku shaqeeyo ee qarankaasi uu ku hormaray ama uu ku dabdhacay inay tahay sida shaqaalihiisu u shaqeeyo waxaan ognahay adduunka badankiisu iminka waxa sharci laga dhigay 8 saacadood oo shaqo ah 8 saacadood waa sida ugu yar ee waxa weeyaan adduunku yaqaano inta badankiisuna waaba ka badan 12 saacadood baa la shaqeeyaa innaguna sidaynu ognahay waynu garanaynaa saacadaha aynu shaqeyno taas waxay ku xiran tahay waxa weeyaan sidaynu wax uga bedelno
waxaana muuqata iminka inaynu wax ka bedelay oo mas-uuliyiintii kala dambeeyey oo dhallinyaraha oo aqoon-yahana oo hay'addan hogaaminayay inay runtii isbeddel weyn ku sameeyeen qarankuna isla beddelay waxaan kaga baxayaa dhallinyaradaa la abaalmariyey iyo inta aan la abaalmarin ee shaqadan qabatay mar labaad waan u hambalyeynaya waxaan la leeyahay dee nabigeenu calayhi salaatu wasalaam dadka markii la weydiiyey yaa ugu khayr badan anfacuhum linnaas dadka waxa ugu khayr badan kuwa ummadda anfaca ma aha magacyada kale ee milyaneerska ma aha manaasibta iyo meelaha maxaa dhahaa ee la joogo ma aha aqoonta keliya iyo maxaa dhahaa halka laga gaadho ma aha laakiin waa qofka ummadda anfaca